hadduu bay habboon tahay aan dhagaystayaal idiin soo gudbiyo sheeko xariiradii maroodiga iyo atoorka oo kooban anigoo ku xijin doona geeraarkii uu Faarax Xuseen sheekada ku xusay. Waxaa la yiri waxaa jiri jiray ceel biyo badan oo markay oonto ay duurjoogta oo idil u soo aroori jirtay kana cabbi jirtay. Wuxuu ahaa ceel ay u sinaayeen dhammaan duurjoogta kuweeda ugu waaweyn sida maroodiga, libaaxa iyo wiisha, iyo kuweeda ugu tabarta daran sida sagaarada, shimbiraha iyo bakaylaha. maalintii dambe xilli ay jiilaal kulul tahay ayaa waxaa ceelkii u soo aroortay sagaaro oo atoorkii boqorka u ahaa oo hor socdo. markay biyihii cabtay dhowr jeerna ay ku rakaadatay ayay u harsi doonatay agagaarka ceelka geedgaabkii ku yeeli. dabadeed atoorkii oo calooshii buuxsaday ayay mar qura wax ku soo dhaceen. tobaneeyo sagaar isaga oo hogaaminaya ayuu ceelkii dib ugu noqday oo inta ciid iyo dhoobo ka buuxiyey haddana oodafo weynaatay afka ka saar. sow kibir baa taabtaye wuxuu ku tashaday maalintaas kadib duurjoog dambe inaysan kaba cabbin ceelka. muddo gaaban kadibna waxa isa soo dhigay maroodi iyo wiil oon bastoodla ah oo inta kalkoodii soo galay aroor ah. kaalinkii ceelka markay u soo dhowaadeenna waxaa u muuqday wax aanay filayn. waxay indhaha ku dhufteen ceelkii oo ood afka laga saaray iyo atoorkii oo dul fadhiya. markaas bay yaab u go'een. hase ahaatee cidda falkaa ku kacday inay atoorka tahay markay ogaadeen kumay soo boodine way u miiriyeen. maroodigii ayaa ku yidhi, waryaa atoorow, qoraxeed xun baanu ku jirnaa oonna waanu la liidanaaye hana oomin. ceelka aad ciidda ka buuxisay annagaa qodaynee geedkaa iska harso, hadhowna wax biyihiisa afka saara adigu ugu horree. hadalkaa qabowse atoorkii rabbi wax ugama dhigin. markaasuu isaga oo yasaaya maroodigii ku yidhi, ceelka cid ka cabbaysaa ma jirtee calaacalka intaydun iska daysaan xoog iyo itaal kaga cabba, haddii kale sawaxanka igala kortaga. maroodigii baa kolkaa isaga oo aan dheerfin wuxuu isku dayey inuu atoorka si walba ugu caqli celiyo. wuxuu u faahfaahiyey aayoxumida kibirka iyo galdarrada laga dhaxlo. wuxuu xusuusiyey in ceelka loo siman yahay ee aanu ahayn miduu isagu gacnihiisa ku qotay ama uu aabbihii uga haray. dhinaca kale wuxuu ugu caqli celiyey isaga maroodiga iyo wiilku mar hadday ceelka ka cabbaan inay muddo dheer ku qabaan kana maqnaadaan, halka uu atoorku yahay midka dharaar walba iska ag jooga ee ka waraaba. sidaas darteedna ay ku habboon tahay iyadaa dani ugu jirtaaye intuu xagga nabadda u xagliyo inuu iyagana ceelka miilo uga ogolaado. ugu dambaystii wuxuu ku xabsi geliyey isaga iyo wiilku inay uunka eebbe ugu xoog badan yihiin, taana uu ku ogaan karo geedaha quracda ah ee intay jirta siibeen ay iyagu dhulka soo dhigeen, atoorkuna uu indhihiisa ku arki karo. hase ahaatee waxaas oo waanahaya waxa oo tusaale ah atoorkii wax yarna kama bedelin. waxaana la abankacay geed nagaarka jilabka lagu magacaabo markii uu geesihiisa yareeraa dhowr jeer ku hirdiyey. talaxumadiisa waxay ka ahayd dhoolatus uu awooddiisa ku muujinayo, bahallada waaweyn ee meesha taaganna uu ku bajinayo. dabadeed jawaab kale sidii looga sugaayey waatuu atoorkii ku xiro dalaaqay iyaga oo ooman inay oonkooda la fulaan, haddii kale dirir laysku baaba'a ay goobta ka dhici doonto. maroodigii oo xiro dalaaqaas ka hor aan caroon ayaa mugga camal guhaadooday, ciilna la madax wareeray. markaasuu jeedihiisii balbalaaraa iyo foolkiisii xoogga badnaa intuu kala faanay ku dul saarooday oo fud weyn madaxa kaga bashaaqay, halkaasoo isla markiiba uu atoorkii ku baktiyey. dabadeed markii sidaas awoogood loo dilay ayay meel ay joogtayba sagaaro oo idili kulan isugu timi. waxay ku tashatay inay maroodi disho, welibana ay u disho isla habkii uu isagu wax u dilay, sidaasna ay ugu aarto atoorkii ay ka soo fireen. maalintaas bay sagaara ku heshiisay tu waliba inay meel qurasaaladeeda ku ururiso si kolka dambe markay isku biiriyaan ay u noqoto wax la eg tii maroodigu uu abkood ku aynabay. siday haddaba sheeka xariiradu leedahay, maroodi godobta kaga maqan iyo tashigii ay isku dhaarsatay ayaa sagaaro ugu wacan saara ururinta joogtada ah ee ilaa maanta ay ku howlan tahay. si kastaba ha ahaatee Faarax Xuseen oo sidaan soo sheegay u dan lahaa gabyaagii la oran jiray Maxamuud Muuse ayaa sheeka xariiradan geeraar dheer u rogay. waxaynu ka soo qaadanaynaa qaybihiisa ugu horeeya ee sheeka xariirada hoseeya. wuxuu yidhi, war allahu akbar ee atoor guuya sagaariyo aw bariis weyeeleed iyo maroodaa is-iraaqayoo aroor bay ku kulmeen. abtadii dulmayeedana atoor baa u lahaayoo ceelkiibuu asaruuray. aw maroodi ku laab atoorow hana oomin,
أمن كان أن يشوقنا أم نعبا ليلا أننا هاتا نفتينا أسقى الميشة للنار أين كان هذا سرورتي بل أنت أنك قضينو عير جيت كفريسو أمن كان كإذ لينو إليه يسبنينو أنك أن أفكى سعرين بل أوركا كبو يحسو أتوركي كل جواب ما يوضو أوركا دا أفكو يوسن كدالي ألك والغا أومي أنيقا أسروري أوتيد بانك قبع أما أونك للوضة أما أوهنت دايو أدي موراي مالا وأخيار عمل كذا أو مرودي كلها أتورا وأبتقينو قابل ليسكم أماغو المماهي العرورة إذ النوم ذرين إذ فليدة سقارنا أذيك أو أميرة أكاد أوضا كرسارتي أذوقا ملهين أدنكاكم أفاقين وحإله أنا هين أمروا كل مان أننا إيقا مفعناه إتشاد عن ربنا مرحدان أفكا سارنو ومصبان أفلا أيامان كقدنا أذيك إسكال سوغي أمين دون تورابو أياتي عن نمادنو ميرا نو أقلو انتي إبهاي أومي ويل كان يأكسوغي عنيقا وأدن وين ورعدان الكحيني وتنحيل كأكتا الله عندها قهرتو لنا أدبوال أركتا والله أكبر فوحمود كأجيجي إن كليو كبيرين وقسل عقبت ديديو كل بقيت كلا آديو إن عاد أون لفرسان عمر لا يسكو إدلام وأردي خد العقل والله أكبر وأنك يا ذوقيد إلقو كرفعنايو دقو أفتا كسارايو وتراب تاكرا آسي أتورقو يستقارنا أرقيس باللواه الآن كاس عيدو توقنو أن ملودي أسيبني أبوغي عنو آسي أبسقار قبطايو وتنهيس أرور أقلين هذا الكيدنا مهما بيكو إذا يسيو تنانو لا يكون sida xariirada laga dhadhansan karo waxa dhageystayaa lama huraana inta aadan cadawgaaga dagaal ugu bareerin inaad si buuxda taagtiisa u qiimaysid dabadeedna wixii ku soo baxa aad wax ku qaadatid murtidaasina waa sababta markii actoorku garan waayay uu awgeed naftiisii ku waayay barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta waa naga intaas waa inoo toddobaadka soo socda